waa kana asxaabta doolshihii ciida oo diet ah oo laga sameeyay boorash oo chocolate ah. haddaa rabtid inaad ogaatid doolshaha macaanka badan sidii loogu sameeyay boorash looga sameeyay isagoo diet ah, ila soco fiidiyoga dhammaadkiisa. soo dhawaada asxaabta, waa Muna Corner. waxaad i rajeynayaa insha allah khayr iyo caafimaad meel walba aad joogtaan. waxaa idiin bilaabaya insha allah maxaad wixii laga sameeyay doolshahaas. waxa ugu muhiimsan oo ugu horeeya oo laga sameynayo doolshahan waa boorash. ma isticmaalayna bur, waa doolsho oo diet ah. boorashka waxaa la rabaa in uu shiidnaado daqiiq u ahaado. waa boorashka caadiga oo qasaca ku jiro, 1 bakeeri iyo bar ilaa 2 bakeeri camal oo shiidan. sidoo kale waxaa isticmaalaynaa 2 qaado waaweyn malaba, haddaa rabtid waa ka badsan kartaa, iyo 2 qaado waaweyn oo saliid cadeey ah. sidoo kale waxaa isticmaalaynaa xoogaa qaadada afkeeda oo maxaada baking powder iyo baking soda iyo faniilada oo carfisada ah. dabcan waxaa loo baahan yahay sidoo kale 2 xabo oo ukun ah. 2 xabo ukun aad isticmaalaysaa. sidoo kale waxaa isticmaalaynaa kaakawga ama maxaada kafeyga qaxwada oo powderka ah oo sokorta lahayn aad isticmaalaynaa. sidoo kale 2 xabo ukunta iyo caanahan. dabcan aniga caanahan waxaa lagu sameeyaa doolshahan yogurt ama caanaha garoorta, laakiin aniga garoor ima oolin, marka waxaa idinla wadaagayaa qaab fudud oo aad ku sameysan kartid yogurtka. yogurt ma aha caanaha fadhiya ama garoorka. haddaa rabtid inaad macmacaan ama aad ku samaysatid cunto, waxaad keenaysaa caanaha booraha half bakeeri ah. qiyaasta aad rabtid adiga ku jirtaa, laakiin aniga qiyaasta doolshahan wuxuu ahaa half bakeeri ah. waxaa ku isticmaalaysaa ama ku daraysaa jeex liin dhanaan ah. waad u jeediin siday noqonayaan caanaha, isla markii way kala go-ayaan. xoogaa yar waxay yeelanayaan sidii garoorti camal way fariisanayaan, xoogaa yar way adkaanayaan. waxaa keenaynaa waxyaabaha oo doolshaha laga sameynayo. waxaa ku sameynaynaa mashiinka casiirka ama qalaadada. waxaa isku geynaynaa 2 xabo ukunta iyo xoogaa faniila ah. aad isku qaraacaynaa. waxaa lagu qaraacayaa mashiinka ilaa xoogaa cabaar ah. dabcan doolshahan waa doolsho diet ah oo aad u fudud. aad cuni kartaa, waxaad ku cuni kartaa shaahiga ama qaxwada, idinkagama sheekeyn karo macaankiisa. sidoo kale caloosha wuu u fiican yahay, dharag baa ku dareemaysaa. ma aha sida doolshaha caadiga oo kale oo laga sameeyo burka ama daqiiqda cadda oo sokorta iyo saliidda badan leh. waa doolsho aad diet u ah oo aad u fudud oo isla markiina caloosha u fiican. marka aad idinkugu dhiirigelinaa inaad tijaabisiin. xoogaa ukunta markii ay qaraacanto waxaa ku dareynaa saliidda 2 qaado waaweyn camal qiyaasteeda. sidoo kale waxaa ku dareynaa malabka aniga waxaa isticmaala 2 qaado waaweyn. dadka macaanka aad u jecel ma ihi, laakiin waxaad ku darsan kartaa 2 qaado kale, yani waxaad ka dhigan kartaa ilaa 4 qaado camal oo waaweyn. caanihii waa u jeediin siday noqdeen, maasha allah way xoogaa way adkaadeen, sida maxaada garoor camal ay noqdeen. waa sida laga rabo. waxaa lagu dhahaa ingiriisiga buttermilk. marka macmacaanka iyo doolshooyinka badanaa waa lagu samaystaa. marka haddaad haysan yogurt ama maxaada garoorkaas, qaabkan camal aa isticmaali kartaa. waa qaab fudud. liin dhanaan iyo caano guriga lagama weynaayo. marka waxaa idin leeyahay hama ogaanina fikradan. dabcan kulli waxaa la iskugu geynayaa bahasha mashiinka casiirka ama qalaadada blenderka la iskugu geynayaa. malabkaa lagu darayaa. markii waxyaabaha dhan oo qoyan markii la isku geeyo xoogaa ay si fiican u garaacmaan, kadib waxa loo geynayaa alaabta oo maxaahado lagu dhamaystiri lahaa sida boorashka. dabcan inta aniga aan sameynayo alaabtan ay isku dardaraayo boorashka iyo maxaahado ay isku dardaraayo doolshaha, foornada way ii daaran tahay. waxaa la rabaa foornada inay kuusii daarnaato ay kulaato. waxaa inta isticmaalaya 2 bakeeri oo xoogaa dhiman oo boorashkii oo shiidnaa. sidoo kale 2 qaado waaweyn kakawga ama kafeyga sida Soomaalida ay dhahaan, kakawga powderka oo sokorta lahayn.
laba qaado waaweyn, xoogaa yar qaadada afkeeda oo baking powder ah iyo qaadada afkeeda oo baking soda ah. laban bay kala yihiin, baking powder iyo carbonato bay badanaa dadku u yaqaanaan. labadaba waa isticmaalaynaa. waxyaabaha qalalan marka isku geyno si fiican iskugu dhexgelinayna, waa qasayna ayagoo maxay ahayd qoyaanka lagu darin si fiican isku dhexgelinayna. kadib waxaa ku daraynaa waxyaabihii qoyanaa aan diyaarsanay, ukuntii iyo caanihii iyo malabkii iyo saliidii ku daraynaa. dabcan waa la walaaqaya, uma baahanaysid inaad maxay ahayd mashiin aad ku walaaqdid, caadi qaadada ku walaaqi kartaa. markaad dareentid inay si fiican isku dhexgaleen oo si fiican burburka ka baaba'ay aad isticmaalaysaa. waxaad dareemi kartaa inuu xoogaa yahay, inuu xoogaa jilcan yahay, laakiin ha ka baqin. boorashka wuu adkaanaya cabaar markuu joogaba isla markiiba asagoo adkaada arkaysaa. marka waxba ha ka baqin, waxaa la rabaa sidaas camal inuu xoogaa u jilcanaado. waxaa keenaya weelkii aad ku gashan lahaa foornada, si fiican xoogaa maxay saliid ama dufan u marinaya sidii doolshaha ugala soo baxo. saa idii sheegay, foornada way ii daaran tahay, way kulushahay. mar walbaba maxay ahayd markaad doolsho samaynaysid foornada, markaa alaabta doolshaha shaqadeeda aad gashid inay kuu daarnaato waay foornada. dabcan foornada saxankaana isticmaalay, saxankaana kula gelinaya muddo. qof walba foornadiisa way kala duwan tahay, laakiin ani muddo ilaa 25 daqiiqo ilaa nus saac bay igu qaadatay. waxaad ku ogaanaysaa inay bislaatay, dhinacyada saas xoogaa madow uga noqonaysaa. sidoo kale markaa gelisid istakiinka isagoo qalalan buu kuu soo baxaya. dabcan markii foornada laga soo bixiyo cabaar baad daynaysaa, ma taabanaysid ilaa xoogaa ay si fiican u qabowdo. markay si fiican u qabowdo oo maxay ahayd kulaylka uu ka bawqandac noqdo, aad maxay gadinaysaa. mar walbaba doolsha hadaad kasoo bixisid foornada asagoo kulul lama gediyo, markuu qaboobo ama xoogaa qandac noqdo kadib aa la gediyaa. waa kanaa doolshihii maasha allah, caraftiisa idinkagama sheekeyn karo, jileecna waayo. dabcan doolshaha xoogaa waa sharaxanaynaa. qof walba hadaa rabtid sidaasaa ku cuni kartaa, caadi waaye, macaan waaye. laakiin ani xoogaa waa sharaxanaya. waxaa ku sharaxanaya qaab fudud, soos yar oo maxay sokor badan lahayn baa isticmaalaya. hal qaado oo maxay kafeyga ama kakowga, iyo hal qaado malaba, iyo hal qaado oo caano oo maxay ahayd caano oo qoyan, caano booro oo qasan ka wadaa, isku geynaya. sidaan qaab fudud oo howl fududays waaye. haddaa rabtid waa badsan kartaa, intaan camal waad ku darsan kartaa yani qiyaasta, laakiin ani intaasaa igu filneed. waxaa sidoo kale waxaa yeeli kartaa shokolaatadan oo Nutella waad marsan kartaa, laakiin aniga doolsho diet 100% oo diet ugu talagalay. marka ma marin Nutella. sooskan fudaydka oo aad u fudud oo sahlana maxayda u samaystay. waxaa ku sharaxaya xoogaa yar oo buskud oo shiidan korka uga sharaxaya. waxaad ku sharaxan kartid ku sharaxan kartaa hadaa haysatid strawberry, hadaa haysatid faakahada rabtid ku sharaxan kartaa, ama gabal chocolate oo yar yar chocolate chipsiga waxaa rabtid ku sharaxan kartaa, adiga iyo choice-kaaga waaye. laakiin xoogaa sharaxaada indhahay u roon tahay marka cuntada aad samaysatiin, xoogaa yar sharaxaada ugu dadaala. sidoo kale marka xoogaa buskudkaan ku sharaxdo, waxaa ku sharaxaya kale gabal yar oo chocolate ay yaalay oo maxay ahayd oo chocolate caadi gabalkaas chocolate-ka xoogaa yar waa xoqxoqaya ama maxay ahayd ay midi ku yaryareynaya. waa ujeedin gabalkaas chocolate-ka midi ku yaryareynaya, kadib marka midida ku yaryareeyo korka unbaa uga sharaxaya. dabcan asxaabtaas choice-kaaga waa sidaa rabtaa u sharaxan kartaa. anigu wixii ii yaala unbaa ku sharaxday. waa kana doolshihii maasha allah tabaaraka allah, idinkagama sheekeyn karo runtii, yani inaad tijaabisiin waaye. doolsho ciid oo fudud waaye, aad ku ciidi kartiin. sanadkii hore waxaa idiin soo geliyey buskud ciida, buskud laba nooc oo buskud oo ciida loogu talagalay, oo isagana boorashka labadaba boorashka laga sameeyay. marka waad fiirsan kartiin, waa idiin soo gelinaya linkiyaasha insha allah. maanta sanadkaana insha allah waxaa yani idinla jeclaysa inaa idiin soo geliyo doolsho oo fudud oo boorash laga sameeyay. marka asxaabta waxaa rajeynaya insha allah videoga inaa ka hesheen like iyo share iyo subscribe xagiina waaye, dhiirigelin bay ii tahay. mar walbaba maxay ahayd gar walaashina caawinaysiin. videoga markaa like saartiin ama share dhahdiin, asxaabtiina la wadaagtiin waxyaabahan dietka. waxaa rajeynaya inaa ka heshiin, faa'iidana idiin soo gudbiso. marka mar walbaba dhiirigelinta waa xagiina. waa ujeediin maasha allah doolshihii hadda jarjaraya.
جلاعيسة إذن كجمش شيكين كرونتي يعني soft آد واي رونتي سيدو كلا وحد يعني سبوني عمل يعني وأجدين فيديو يعني سايدين تصايقاب كايدين تصايقاب آد يعني أفضل واي أيدين كو تصي أيدين كو سمي وأنا كهلي دونتين وهو تجابية هموغانينا أصحاب عيد مبارك إذن الله هاي كل عام وأنتم بخير إلهي إنك أقبل صونك يا صلاة دقير إذين رجينا إن شاء الله ميلو الباد جوكتان السلام عليكم.